استروجين wuxuu ka mid yahay hormoonada laga helo rag iyo dumarkaba laakiin waxay ku badan tahay dumarka maxaa keenay marka inuu hoos u dhac ku imaado dumarka waxaa keeno da'da sabay u noqon kartaa qof hadii qof dumarku uu weynaado oo da'da caadada ay hogeyso kala imaado waxaa kale oo sabab noqon karo cudurrada ku dhaca cuntada sida qofka in uu gaajada ay ka guurto ama uu qaadan waayo cunto ku filan waxaa kale oo sababi karta in ay yaraato in qofkii uu qaato jimicsi badan inuu sameeyo asagoo weli jirkiisa aysan soo galin wax nafaqo oo ku filan aysan soo galin waxaa kale oo sababto in jirka qofka uu weerar jirkiisa inuu isku soo qaado waxa loo yaqaan autoimmune maxaan ku garan karnaa marka qofka in loo estrogen maxaa lagu garan karaa estrogen in loo waxa lagu gartaa qofka in maqaarkiisa uu qalalo in habeenkii dhiid fara badan isku aragto gabadha ama qofka dumarka isku aragto waxaa kale oo isku arki kartaa in caadada ay maqnaato ama si marna ay joogto marna ay maqan tahay ee qaldanta caadada in moodka qofka inuu saxneen iyo waxa lagu arki karaa daciifitaanka lafaha inay ka daciifaan gabadha mar walba lafaheeda inay jabaan inay halis ugu noqoto calaamadaha haddii aad isku aragtay ama estrogen lagaa sheegay waxaa muhiim ah inaad dhakhtar la xiriirtid daawooyinka dhakhtarka ku siinaya inaad qaadato barashada xirfadaha casriga sheer xirfad qaybta caafimaadka waxaan kugu diyaariyay koorsooyinka caafimaadka ee aasaasiga sida maternal skills course marxaladaha hooyada caafimaadkeeda lagula socon karo koorsada nafaqada nutritionka jirkeena nafaqooyinka u baahan yahay ku baranayno waxaa kaloo kugu diyaariyay emergency care qof hadduu xaalad degdeg ah galo sida uu caawin lahayn iyo barashada daawada pharmacology linkiga hoose ayaa idiin soo dhigayaa koorsooyinka